Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kusoo dhawaada channelka Mo Forex. Halkan waxaan kusoo gudbiyaa sida maalinlaha ah tirada aan qaatay, meeshaan ka qaatay iyo meeshaan ugu baxay iyo sababaha aan u qaatay iyo waxyaalaha kale aan soo gudbiyaa xilliyada oo suuqa fasax uu yahay, backtest ama simulation waxa la dhahayo, inaan suuqan aan dib u fiirino sanadihii hore wuxuu sameeyey si aan isku diyaarino maalmaha soo socda wixii aan ka rabno. Intaas ayuu u daaran yahay channelkan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kusoo dhawaada channelka Mo Forex. Halkan waxaan kusoo gudbinaa si maalinlaha ah tirada aan qaatay, meeshaan ka qaatay iyo meeshaan ugu baxay iyo sababaha aan u qaatay iyo trade markaan qaato inaan management aan ku sameeyo khasaarihii, aan fiiriyo khasaarahan ku talagalay maalintii inaan iska ilaaliyo inaan dhaafin, faa'iidada markaan raadinayo inaan raadiyo wax faa'iido la ogyahay maalintii oo maalinla ah oo aan noqonin wax badan inaan raadinin ama wax aan dhihin 1 to 3 1 to 4 1 to 5 aan raadina, ay noqoto wax target inaad leedahay. Targetkaada markaa heshidna aad suuqa ka bixi kartid, markaad suuqa ka baxdid haddana maalintii kale targetkii aad samayn kartid. intaasna waxaa lagu samayn karaa waa inaad tradekii aad sugtid, waa in suuqa aad sugtid, waa in trade markaa qaadanaysid aad sugtid, waa in trade markaa qaadatid aad sugtid. marka insha Allah intaas ayuu u daaran yahay informationkan aan hordhac ah. Marka waxaan aadi doonaa dhankii shaashada. Kusoo dhawaada. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kusoo dhawaada Mo Forex. maanta waxaan rabaa sidii maalinlaha ahayd tradeka aan qaatay iyo meeshaan ka qaatay xaaladiisina aan fiirino. Tradekan halkaan saaray trade aan ka qaato laakiin wuu i dhaafay. laakiin markii meelahan soo gaaray tradeka halkaan ka qaatay, targetka guud aan u socdana waa halkan. waxaa laga yaabaa inuu xoogaa ii wado, laakiin haddii oo lacala usoo jeestano kolley asalka waxaan keeni doonaa halkan hadda meeshan oo kanalkan 15 minutekii hore korkiisa. marka ordabay ilaa meeshaan markuu imaadana asalka waxaan keeni doonaa entryga. hadduu meeshaan sii garaacana kolley aadi doontaa tibia ayuu ku dhici doonaa. marka aan fiirin hadduu leedma sida caadi ahayd markaan trade aan qaato, inaan fiirino tradeka kale aan qaadanay oo tradeka shalay aan qaadanay meesha nala aaday iyo suuq dhamaaday. tradeka shalay horta tradeka halkaas ayuu ahaa targetka guud aan rabay, halkaas ayuu ahaa meesha calaamada ii saarneed. markaas suuq ka baxayana aan zoomka aan xirayana, marka targetka tradeka halkaas ayuu ahaa. markaan suuq ka baxana 30 pip meelahaas ugu baxay, kadib tradekii uu gaaray targetkii ugu ayuu gaaray. kolley maalin kasta waxa waaye wixii suuqa ka heshid inaad ka qaadatid. maantana targetkan guud waxa waa halkan waaye 198 ama 700 meelahaas hadduu leeyahay inaan ka heli doono, inaan ka rajaynayna hadduu leeyahay. hadda tradeka una socdaa hadduu 2% camal ka helana kolley waa iska manage garan doonaa. 1 hourka markaan fiirino tradeka hadda 1 hourka hore asalka waxaan samayn doonaa hadduu leeyahay 1 hourka hore korkiisa ayaan keeni doonaa sida caadi ahayd. marka asalka trade aan qaato asalka waxaan dhigtaa kanalka ka horreeyey, kanalka aan ku galay kanal saacadii ka horreysay korkeeda week wax yar aan jaanis siin hadduu leeyahay, wax yar jaaniskaas aan siin doonaa. tradeka hadda uu socdaa waxaan u lisaa weli inuu faa'iido wado. hadda markaan fiirino wuxuu wadaa ilaa 13 pip. marka 20 pip markaan ka helno targetka koowaad waan ka qaadan doonaa, 20 kalena waxaan ka qaadan doonaa targetka labaad. marka insha Allah kolley sidaas ay ahaan doontaa hadduu leeyahay. tradekii waxaad umaysaa in oo 20 pip koowaad uu gaaray, hadda u socdo 20 kale. marka waxaan qorsheyna waxa waaye risk management inaan sameyno, asalka inaan keeno entryga ugu yaraan meesha inaan keeno, kadib aan sugno ilaa all the way down halfkeenan aan ka qaadano. kolley saasay noqon doontaa. tradeka hadda u socdaa si fiican ayuu u socdaa. 1% waa haystaa laakiin waxaan sugaynaa 2% ilaa uu ka gaaray. si fiican uu ku socdaa maasha Allah.
markaas trade qaadasid waxa lagaa rabaa inaad iska managementiga issue ka haysid trade-ka qaadatid uusan kaaga saarin maxaa la lahay faa'iidadaada uusan kaala laabanin tan ugu muhiimsanaa taas wixii faa'iidaa ka heshay waa inaad ka qaadan kartaa trade-ka marka waxaan sameynaa hadda trade-kii waxaan ku samayn doonaa asalka horta intrigan kaadsan doonaa qaarna waa xiran doonaa haduu ilaaha idmo u bersanta aan haysto okay aan usoo laabana marka qaabkii loo manage garan lahaa markaan usoo laabto tusaalahaan 15 minutka haduu dhamaaday 15 minute cusub waa bilowday 15 minute cusub markuu bilowdana badanaa wuxuu sameeyaa inuu kor aado mise inuu hoos aado taas waxa waa suuqa saas kale kule inaka ma istaajin karno mana xukumi karno waxaan xukumi karnaa keliya inaan trade markaa furtid inaad control kartid xiri kartid isarkaada soo sikin kartid bashal aad ka qaadan kartid wax qaadanaysid ama aad sugaysid marka insha allah tradeki bashal aan ka qaatay halkan waxaan sugay hadduu ilaahayno allah ii dhiman inuu gaaro hadduu ilaahayno laakiin hadduu all the way up usoo laabtay kolley waxay noqon doontaa inaan u ogolaanin kanalkan nuskiisa meelahaas markuu imaado inaan wada xiri doono hadduu kanalkan nuskiisa imaado zonka hadduu imaado inaan wada xiri doono kama rabi inaan soo faa'iido ii wado haddana inaan khasaaro u baxo ama xiran igala laabto marka insha allah kolley sidaas waaye wixii dheeri kolley waan arki doonaa soo noqda suuqa iyo meeshuu na geeyey insha allah tradeka horta waxaa muuqata inuu ku dhacay tbn masha allah si fiican ayuu ugu dhacay waxay ahaa tbn wuxuu noo ahaa tusaale ahaan 36 bib 36 bib uu ku dhacay masha allah si fiican ayuu u shaqeeyey maalin kasta waxa waaye suuqaan haddii aad soo geshid waxyar wixii aragtid aad ka qaadatid si nadiifna ugu baxdid intaas waa wax la rabo intaas waaye tradeka waa hayn karaan ilaa zonkan tusaale ahaan hadda markaan dhaho maadaama zonska ani aan maxaan lahay trade ku qaato tradeka waxaan rabay inaan hayo ilaa 97,730 meelahaas tb-ga exact meelaha u yaalay laakiin halkaa markuu soo gaaro waa iska xiray maadaama calaamadda halkan ethernet waxaan umalaysaa inuu reject sameynayo marka insha allah kulli tradekan sidaas ayuu ahaa trade kasta aan qaatay iyo meesha ka qaatay iyo sababtaan u qaatay kaas 1 hour korkiisa ii gey si aan 1 hour geykan haddii mar aan kusoo celiyo sababta tradeka aan u qaatay tradekan wuxuu ahaa waan sheegay tradeka halkaan rabay tradekan aan ku qaato markuu kanalkan oo haydi uu jibiyey kanalkan kale oo maxaa lahay nymk santay kanalka ku xiga zonkan rabay inaan ka qaato calaamada ethernet si xooli ayuu ku daatay suuqa marka waxaan sameeyey maadaama suuq si xooli ku daatay waxaan sameeyey okay waxaan dhahay iska sug waan sugnay ilaa dib ugu soo laabto markaan aan sugay tradekii oo kanalka saacadda ku xigtay oo zonkaas imaaday oo saan oo ku xirmay haddana waxaan dhahay okay waxaan aaday qaybta kale oo 15 minutka ayaan u wareegay 15 minutka waxaan ka fiirsaday intriga saxda ahayd meeshaan ka geli lahaa intriga saxda ahayd waxay ahayd inaan ka galo tusaale ahaan waxaan iska qariyo intriga saxda ahayd kii koowaad halkaas ayuu ahaa waxaan rabay all the way down halaha straightkan inaan ka qaato maadaama uu dhaafay waxaan sugay kanalka kale oo xoog u socday kanalkana xoog u socday waa sugay ma qaadan kan kale xoog u socday ma qaadan kan hadda markuu kor aaday oo zonkan uu soo garaacay kadib aad seerka ka qaatay si hadda muuqato all the way down halaka ayuu ahaa tba-na waan ka qaatay hadda waxaan sugnaa malahan kulley tradeki halkaasaan kusoo xiraa markaan fiiriyo hadda tradeki meeshuu joogo tusaale ahaan iyo okay tradeka hadda waa kana meesha calaameeyey saan u calaameeyey ay ahayd marka muhiimadda ay leedahay trade markaa qaadatid inaad iska sugtid waa intaas halkaas meesha waan rabay inaad trade ka qaato halkaas ayuu ahaa kii hore kana ayuu ahaa ma qaadan kii labaadaan qaatay kii labaad markaa qaatay kanalkan oo xoog u socdo rejection soo sameeyey kanalkan kale haddana aan ku qaatay all the way down haddana waxaan arkay tba in la gadaayey hadda waxaa ujeedaa in lasoo celiyey suuqan yani buyskii horta suuqan waa buy all the way up suuqan kor u socdaa
laakiin maadaama suuq kor u socdo waa inaa haystaa istaraatiiji suuqa markuu kor u socdo iyo markuu hoos u socdo aad kala socon kartid. marka insha allah tradeki maanta aan qaatay iyo sababta aan u qaatay halkaas aan rabaa inaan kusoo xiro hadduu ilaahay idmo. marka waxaa inoo ballan maalinta beri ah. maanta waxay ahayd maalin kale oo qurux badan. maalmaha waxa way horay leeyihiin qofkii waxa waaye oo dadaalo oo wax barto kulley uu gaari doonaa. qofkii raba inuu barto sida trade aan u qaato iyo qaabka aan ku qaato kulley maalin kasta aan qaato waa soo geliyey youtube-ka way ku jiraa. simulationka qofkii rabana kulley waa fiirin kartaa youtube dib u fiiri moga forex youtube-kiisa. insha allah sanadkan waa dhammaad waaye dhammaadkan aan bilaabay youtube-kana wax soo geliyey. insha allah sanadka cusub waxyaala ka duwan wax badan aan soo gelin doonaa hadduu ilaahay idmo. marka insha allah nala socda hadduu ilaahay idmo. asalaamu calaykum waraxmatullahi